shantan ri haddii aad ku riyooto waxaa tahay qof sixiran. Mid koowaad, haddii aad ku riyooto dab ama meel gubanayso ama waxyaabo holcaaya, waxaa tahay qof sixiran ama uu sixir ku soo socdo. Maxaa yeelay waxaa la sheegaa inay shayaadiinta jirkaaga gubayaan ama ay diyaarinayaan sida jirkaaga uu ku gali lahaa sixirka. Mid labaad, haddii aad ku riyooto mugdi ama habeen, waxaa tahay qof sixiran ama uu sixir ku soo socdo. Maxaa yeelay mugdiga waxaa adeegsada shayaadiinta, waxaana la sheegaa riyadaasi inay tahay in lagu diyaarinayo sixirka madow ama uu jirkaaga ku jiro. Nambar 3, haddii aad ku riyooto mas madow ama bisad madow ama ay, waxaa tahay qof sixiran ama uu sixir ku soo socdo. xayawaanadaasi waa xayawaanada loo adeegsado waxyaabaha shayaadiinta badanaaba waxaa la sheegaa in loo soo dhiibo sixirka amaba loo adeegsado. Nambar 4, haddii aad ku riyooto adigoo dhaawac isku geysanaya amaba jirkaaga ku jaraya sakiin, waxaa tahay qof sixiran amaba uu sixir ku soo socdo. dhaawacyadaasina waxaa la sheegaa in ay shaydaanka u fududeynayaan in uu jirkaaga soo galo oona sixirka ku beero. Nambarka 5, haddii aad ku riyooto adigoo dhumay amaba maraya waddo aadan weligaa marin, aadna dareemaysid in aad luntay, waxaa tahay qof sixiran amaba uu sixir ku soo socdo. waxaa la sheegaa middaa inay tahay midda ugu xun, maxaa yeelay shaydaanka ayaa isku dayaya inuu maskaxdaada lumiyo, uu ku jahwareeriyo si aad u weysid dareenka maskaxda, waana midda dadka maskaxda loogu qabsado.